السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عروري حتى كهر وحاجري جرين إن لغو مقعاب جري علي بابا علي بابا وحو هانين فقير ودنير قرير أيو لها حاسنا واو لها حولنا وحو كغبي دمير كاس أيو قرية كسو قري جري سوقونا جي جري ونكا قنعسين جري وحاو لعقت أو كهل قريهاس أيو نلشيسا كود أحسن جري caruuray cali baaba maalin asoo qoryo aruurinayo ayuu waxa u maqlay sharqan aad iyo aad u fara badan dad badan oo soo socdo cali baabana waxa uu sameeyey dameerkiisii ayuu qariyey oo geeda ku hoos qariyey isagana waxa uu fuulay geed dheer ayuu fuulay oo waxa uu fiirinayay caruuray dadka soo socda iyo waxa ay yihiin kadibna wuxuu arkay niman badan oo tuuga oo xoolo wado uu fiirinay cali baaba waa uu tiriyey raggiina waxa ay noqdeen 40 nin iyo ninka hogaaminaya 41 nin ayay noqdeen fartihii ay wateen ayay alaab ka soo dejiyeen caruuray kadibna waxay la aadeen meel qar ayay la aadeen mid ayaa jawaankiisa dilacsanaa waxaana ka daadanaya dahab cali baabana aad iyo aad ayuu ula yaabanaa ninkii hogaamiyaha ayaa darbi weyn ag imaaday waxauna yidhaahday zamzamiina waan imaaday furan ayuu yidhaahday kadibna dhagaxii meeshii waa uu ka leexday kadib waxaa ka soo baxay god kadibna tuugadii waxa ay ku aruureen godkii oo waxay wadeen waxa ay ku xareynayeen godkii cali baabana geedkii ayuu saarnaa oo waa uu fiirinayay dhagaxii ayaa mar kale ku daboolmay darbigii cali baaba oo aad iyo aad u yaaban ayaa albaabkii furmay kadibna tuugadii waa ay ka soo baxeen ayaga oo waxba wadan oo wixii ay wadeen oo dhan waxa ay ku soo xareeyeen godkii ay galeen ayay ku soo xareeyeen ninkiina sidii hore ayuu wuxuu yidhaahday zamzamiina xiran ayuu yidhaahday kadibna albaabkii waa isxirmay tuugadiina waa ay iska baxeen cali baaba oo aad iyo aad u yaaban ayaa waxa uu kasoo degay geedkii kadibna wuxuu imaaday meeshii kadibna waxa uu la hadlay dhagaxii oo wuxuu yidhaahday zamzamiini ii furan waa imaaday mise waaba uu furmayba aad asoo ula yaaban ayuu waxa uu galay godkii markii uu galay waxa uu arkay weligiis waxa uusan ku arkin dahab aad iyo aad u tiro badan ayuu ku arkay aad iyo aad u tiro badan waa uu la yaabay kadibna waxii oo ka qaadan karay ayuu ka soo qaatay isaga oo ka baqay haddii aan godkan ku taha tuugadii way imaanayaan wayna i dilayaan kadibna albaabkii ayuu u xiray oo wuxuu yidhaahday zamzamiina xiran ayuu yidhaahday cali baaba dameerkiisii ayuu iska watay waxa uuna aaday gurigiisii xaaskiisii ayuu la kulmay oo waxa uu u geeyey alaabtii uu soo helay iyo dahabkii kadib aad iyo aad ay ula yaabtay xaaskii waxaan tirada badan waxauna uga sheekeeyey meesha uu ka soo helay iyo waxa yaallo oo uu kasoo tegay tiro badnaantooda kadibna waxay go-aansadeen in ay xisaabaan kadibna waxa uu yidhaahday ninkan dariskeena u tag oo waxaa naga soo qaadaa madaalka wax lagu beega naga soo qaad kadib islaantii waa ay baxday oo waxa ay aaday dariskeedii si ay u soo weydiiso madaal ay doonaysay in ay dahabkaani ku cabiraan ninka dariskooda ahna wuxuu ahaa nin baqiil xoole leh laakiin aan waxba aynan gacantiisaba ay kasoo dhicin islaantii gurigii ayay ninkii u garaacday waxa ayna weydiisay madaal inuu soo siiyo ninkii aad iyo aad ula yaabana ciddan faqri ayay ahaayeen waxa ay xisaabayaan waa maxay ayuu isweydiiyey kadibna ayadana waxa ay tiraahday walaalow nagu caaway madaalka waan ku soo celinaynaa waa uu fakeray waxa uu damcay inuu ogaado xabag ayuu soo qaaday weelkii ayuu dabada ka mariyey si alaabtii ku cabiraan uu dhegto hadhowdiina uu ogaado
cali baaba iyo gabadhii waxay bilaabeen alaabtii inay xirxiraan oo cabiraan, kadibna god ayay ku qariyeen oo way aaseen. gabadhiina waxay soo qaaday madaalkii oo waxay u keentay ninkii taajirka ahaa ee deriskooda ahaa. markana dhowr jab oo dahab ah ayaa salka kaga dheganaa oo ninka ugu talagalay markii horeba in ay ugu soo dhegto. markii uu fiirshay caruuray waxuu ku arkay dahabkii aad iyo aad ayuu ula yaabay. dahabkan tiro badan ay beegayaan waa maxay? subaxdii ilaa uu ka baryay ayuu ninkii sugi waayey. subaxdii markii waaga uu baryayna waxa uu ku soo kallahay cali baaba, waxa uuna weydiiyey meesha uu dahabkani ka keenay. cali baabana caruuray waxba kama uusan qarine waxa uu sheegay godkii. kadibna waxuu yidhaahday, haddaad ii sheegi weysay godkaasi dana waxaa igu ballana tuugadii in aan u sheego. caruuray cali baaba waxau u tilmaamay godkii, waxauna ku ballameen in uu soo tuso. kadibna wuu soo kaxeeyey, waxa uu keenay godkii haddii uu keenayna waxa uu baray sida loo furo iyo sida loo xiro. kadibna wuu ka soo noqday, laakiin ninkii damaca badnaa waxa uu soo watay 2 dameer ah, waxa uuna soo aaday godkii si uu uga helo dahab fara badan. si uga helo godkii ayuu imaaday oo wuxuu ku yidhaahday, zamzamiina ii furan. dhagaxiina waa uu furmay. ninkii oo aad ula yaaban ayaa godkii galay. waxa uu ku arkay wax uusan weligiis arag iyo wax uusan malaynin, dahab aad iyo aad u tiro badan. dahabkii ayuu ku dhex waashay oo wuxuu yidhaahday, kan maan qaadaa, kee qaadaa, kan fiiri alla qurux badanaa wuxu. kadibna waxa uu beegay badarkiisii, dhagaxiina oo soo xirmay. kadibna waxa uu ilaabay wixii uu ku furmi lahaa albaabkii. dhagaxow furan, wax furmaayo ma leh. alla muxuu ahaa, mir baa la oran jiray. alla saytuunow furan, wax furmaayo ma leh. qarow furan, dhaymankow furan, wax furmaayo ma leh. geedkii albaabkii wanaagga badnaayo furan. asoo aad iyo aad u naxsan oo meeshii dhex wareegayo, alla maxaan sameeyaa, waan iska ilaabay. albaabkan waxaa lagu furayay, muxuu ahaa waxa lagu furayay. asoo aad iyo aad u yaaban ayaa tuugadii imaadeen. waxa ay arkeen godka irdiisii oo 2 dameer ay ku xiran yihiin. aad iyo aad ayay ula yaabeen. godkeennima tuugaa soo bartay ayay dhaheen. meeshii hadday fureenba waxay ugula kulmeen ninkan oo waxaanu dahab ah jawaano ku xirxirtay. aad iyo aad ayuu u naxay, laakiin asxaan uma ay sameynay. abaalkiisa waxay ka dhigeenba in ay dilaan. ay dilina keligay maheeno, asagoo dhahay ayay dileen. tuugii weynaa waxa uu yidhaahday, waa in aan ogaanaa ninka kale ay la socday ee meesheen xada uu ninkan sheegayo. habeenkii markii la gaaray, ninkii taajirka ahaa ee meeshii god ku xirmay ayaa naagtiisii xaaskiisa waxay u imaatay cali baaba, wayna u sheegtay. cali baabana waxa uu soo raadiyey ninkii. waxa uu arkay godkii oo 2 dameer hortaagan yihiin. cali baabana wuxuu yaqiinsaday in ay nimankii tuugadii ninkan walaalkiis ah dariskiisa ay qabteen ayna dileen. kadibna wuxuu soo noqday gabadhii xaaskii, waxauna u sheegay arrintii meesha ka dhacday. aad iyo aad ayay ula yaabeen. tuugadiina waxay soo aadeen magaalada ayaga oo raadinaya dahabkoodii ninkii soo qaatay. dadkii ayay u direen, waxay dhaheen, dahab noocaasa yaa keenay. waxay suuqa dahabka wareegaan oo marba meel tagaan oo marba meel fadhiyaan. markii dambe mid ka mida tuugadii ayaa waxa uu arkay dahabka noocoodii ahaa oo suuqa ninka iibiyey. kadibna waa uu daba kacay oo waxa uu u raadiyey ilaa iyo meesha uu tago. laakiin nin magaalo si fiican u yaqaani maheen. cali baabana wuxuu iska aaday gurigiisii, asagana wuu daba kacay. markii gurigiisii imaaday ayuu xariiqin istallaaba mariyey si uu caawa guryaha uga aqoodo. laakiin cali baaba xaaskiisii oo qof aad iyo aad u dhagar badan una faham badan ayaa ogaatay calaamadan inay wax ka dambeeyaan. kadibna qad ayay qaadatay. albaab kasta oo magaalada ku yaalayna waa ay marisay.
tuugadii markii imaadeen habeenkii ay isdhaheen bal gurigii aada, waxay arkeen albaabadii oo dhan oo wada marsan yihiin calaamadii ay mariyeen. kadibna kii ay keligaagay kasi waayeen. haddana mar kale ayay suuqa imaadeen oo ay raadiyeen. kadibna calibaaba ayay arkeen. mid ayaa daba kacay calibaaba oo soo ogaaday gurigii uu deganaa calibaaba. albaabkii ayuu u garaacay, waxa uuna ku yidhaahday, niyow ani musaafur ayaan ahay, alaab badanna waan wataa, waxaan doonayaa meel aa ii dhigtid ayaan rabaa. calibaabana waa uu ka yeelay oo wuxuu yidhaahday, soo dhowaaw, annaga martida waan jecelnahay, waana soo dhoweynaa, waana u naxariisanaa. ninkii tuugii asoo aad iyo aad u faraxsan ayuu soo baxay. saaxiibadiis ayuu diyaariyay si aan loo fahmin. kullina wuxuu wadageliyay dhari oo waxa uu yidhaahday, caawa saqdhexa ayaan idin soo kicin doonaa, ciddaana qofna kama tegi doono, dhammaantood waa layn doonaa ay ku heshiiyeen. intii cashada loo sameynayay oo tuugii weynaa iyo calibaaba sheekaysanayeen, ayaa calibaaba xaaskiisii oo socoto ayaa qolkii gashay. mise waxay u tagtay dhariyaashii oo laga dhex hadlayo oo la hayo ilaa saqdhexase u sugaynaa. kadibna waxa ay ogaatay in ay waxaan tuuga yihiin, meeshaana igu jiraan in ay laayaan. kadibna waxay ku fikirtay, sidee baad ku dishaa intii idinka idin dilin? waxay samaysay dheri weyn ay dabka saaratay, saliidna waa ay ku karkarisay. kadibna waxay samaysaa dheri kastaba way furtaa digsi weyn oo saliid ee hal mar gab ku siisaa si uusan qofkaba uga soo bixin oo meesha ugu dhinto. kadibna dhammaantood meeshii ayay ku laysay. tuugii weynaana cashadiisii ayuu iska mashquulsanaa. markii saqdhexa la gaaray ayaa tuugii weynaa soo baxay. wuxuu u imaaday saaxiibadiis, waxau ku yidhaahday, xilligii aan ballanay waa la gaaray ee soo baxa, hoosheenna han qabsanne. laakiin wax u jawaabayay ma lahan. mar kale ayuu la hadlay, wax u jawaabaya ma lahan. kadibna wuxuu furay fuustooyinkii, mise wuxuu u tegay dadkiisii oo meed ah. aad iyo aad ayuu u naxay. kadibna cagaha ayuu wax ka dayay oo bannaanka ayuu cararay. adna yaa lagugu darin ayuu isdhahay. kadibna dib dambe uguma ay soo noqon. gabadhiina calibaaba waxay u sheegtay meesha waxa ku jiro. qeybna waxay ahaayeen dahab, qeybna waxay ahaayeen dadkii inay wax dilaan loogu talagalay. wixii maalintaas ka dambeysay, calibaaba wuxuu helay hanti aad iyo aad u fara badan. tuugkiina dib dambe uma soo noqon. calibaabana cid dambe oo dhibtay ma leheen. faqrigiina sidii ayuu uga haray oo waxauu noqday nin taajir ah oo shaqaalo badan u joogaan.